السلام عليكم saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan muuqaalkan waxaynu ku baran doonaa sida website hadii aad leedahay ama website-kaaga aad ugu dalban lahayd xayeysiinta dabcan website-ka yani waxa uu kamid yahay waxyaabaha ugu badan ama ugu daacadsan oo lacagta laga sameeyo in badan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa lacag sameeya iyagoo kaga sameeya iyagoo kusoo gudbiya warar ama mataqaanaa ciyaaro ama waxyaabo kala duwan ama sheekooyin ama waxyaabo adigana waxa talent Ilaahay ku dhiibay waad kusoo gudbin kartaa dabcan soo kale website-ka yani marka samaysato maaha wax waqti badan ka qaadanaya ama time badan ka qaadanaya kaliya waxa sameynaysaa post aad soo gelinaysaa adiga maalinka hal post aad soo geliso waxaana u soo gelinaysaa kama duwana sidii Facebook aad u soo gelin jirtay oo kale aad u soo gelinaysaa dabcan kadibna website-kaaga inta kadib waxaad sameynaysaa in xayeysiin aad furanaysaa waxa noqonayaa qof walba oo soo boqdo website-kaaga inaad mataqaanaa yani oo kala gareeya xayeysiinta website-kaaga la soo saaro inaad mataqaanaa lacag ku hesho dabcan wax cajiib ah post soo dhigtay yani mataqaanaa ina lacag ku hesho dabcan wax cajiib ah way iyadoo marka ay kala duwan tahay qaabka lacagta aad u helayso iyo qofka marka meesha uu ka soo boqdan ay ku xiran tahay wadamada qaarkood qaarba ah qofka markuu hal xayeysiin oo hal kale ku dhufto $1 يعني waxa aad iyo aad u cajiib ah dabcan soo kala saaxiibayaal waxaynu eegi doonaa website kaas oo aynu soo arki doono qaabka xayeysiinta u saaran tahay qofkii aan awal fahansaneyn qaabka xayeysiinta website-ka u saaran tahay waxa aynu mataqaanaa tag booqan doonaa website xayeysiinta u arki doona dabcan soo kale waxaynu baran doonaa qaabka xayeysiinta website-kaaga loogu furo soo kale waxaynu isla eegi doonaa Google AdSense halkee ayuu lacagta keenaa dabcan lacagta uu inaga nasiinay halkee ka keenaya soo kale isaga lacag ma qaataa faa'iido ma ugu jirtaa lacagta inaga nasiinayo waxyaabaha soo dhan ayaynu isla eegi doonaa soo kale waxaynu isla eegi doonaa yani sida loo xareysto AdSense-ga ama website-kaaga sida loo xareysto shuruudaha waxa jira dhalinyaro badan oo la soo diiday ayaa jirta yani maaha ina Google AdSense ku degdegto maaha waxa jirta shuruudahaas hadaa waafaqdo waa uu ku soo aqbalaya xayeysiintana waa uu ku soo saaraya waxa soo dhan ayaynu isla eegi doonaa dabcan insha Allah kala saaxiibayaal hadii aad nagu cusub tahay fadlan channelka subscribe saar muuqaalkana like saar okay saaxiibayaal hadda waxaynu booqan doonaa ama isla soo arki doonaa website kaas oo ay u furan tahay xayeysiinta soo kale waxyaabo badan aynu qeexi doonaa dabcan okay hadda hadaynu booqano website-ka okay saarkayso website-ka aynu booqanay website-kuna waa kan dabcan magaciisa waxa loo yaqaanaa Berbera News okay website-kan aynu booqanaa dabcan okay website-ka aynu ku dhufanay dabcan waxaynu soo arki doonaa xayeysiinta okay hadda waxaan aragnaa dabcan xayeysiin yani website-kan waa website soo gudbiya news-ka mataqaanaa yani arimaha dhacdooyinka waxyaabo noocaas ah adigana dabcan waa soo gudbin kartaa oo waa sameyn kartaa okay sa arkayso waxyaabahan oo dhan waa xayeysiin qofku markuu muxuu sameeyaa waxa soo akhrisanaya dabcan wararkaas iyo news-kaas ay akhrisanaya okay sa arkayso website-ka meel walba waxa ka saaran xayeysiin dabcan sa arkayso tan waa xayeysiin okay soo kale yani qaybtan korona waa xayeysiin soo kale qaybtana waa xayeysiin hadii aan sameeyo aan ku dhufto yani maanta musabixi wuxuu bariyay Xasan Sheekh Maxamuud Faysal Ali Waraab okay waa wax la iska qoray dabcan yani mataqaanaa si views okay waa ku dhufanaysaa qofku ku dhufanaya kaliya marka hadana xayeysiin kale saarkayso xayeysiin ay ka soo baxaysaa okay saarkayso halkan hadaan mataqaanaa kliksiyo okay saarkayso xayeysiin hadana halkan soo fulaysaa okay يعني qofku saas ay lacag ku helaya oo marka yani mataqaana markuu website-ka saa akhristo mataqaana lacag ku helaya okay way kala duwan tahay yani qofku sidoo lacag ku helayo tusaalahan oo kale waxa kala duwan lacagta uu qofku helayo qofka haduu Mareykanka soo booqdo ama wadamada mataqaana yani CBM-kooda uu sareeyo ama CBC-gooda uu sareeyo kale haduu ka soo booqdo waxa uu helayaa qofkii $1 yani waxa uu helayaa qofkii wadamadaas ka soo booqdo ama wadamada reer galbeedka oo kale wuxuu helayaa 0.50 ilaa $1 inta u dhaxaysa ayuu helayaa CBM-kiisa yani qofkii halka xayeysiinta ku dhufta Africa mataqaana yani waa cents way in kala soo Africa mataqaana ay kala badan tahay waa wax cajiib ah mataqaana in maarta lacagta inta la eg aad ka hesho dabcan wax cajiib ah way soo kale Google AdSense yani ama Google xayeysiinta Google AdSense ama Google kamid Google soo saaray Google AdSense waa dufcad yar oo ka baxda ama qayb ka baxda oo xayeysiinta u qaabilsan waana isha dhaqaalaha ee Google okay Google xagee lacagtan keenaya Google wuxuu keenaya company-ga ayaa wuxuu booqanaya Google ayuu booqanaya Google AdSense ayuu booqanaya kadibna waxa uu ku xayeysanaya ama Google ADS
marka kadibna uu ku xayeysiinay xayeysiintu way kala taxayeysiin nooc kala badan ay leedahay in website laga soo muujiyo in YouTube laga soo muujiyo in mataqaanaa qaab kala duwan loo soo muujiyo aad u badan tahay in Gmail lagu xayeysiiyo marka yani xayeysiinta aad bay u badan tahay okay xayeysiinta markuu website-ka mataqaanaa ku xayeysiin qofkii lacag buu bixinayaa qofkii dabcan markuu lacagtii bixiyo qofkii ayaa website-kiisa la soo saaraya hadaa website-ka xayeysiinta ku soo aqbashay kale ama arsin ku soo aqbalay xayeysiinta website-ka la soo saaray marka website-kaaga xayeysiinta la soo saaro qof walba website-kaaga kala gareeya oo kambanigi yani mataqaanaa waxa mataqaanaa yani kambanigaas qofka wax ka iibsanaya yani saas ka dhigan tahay kadib lacagtii waxa kala qaybsanaya adiga Google AdSense ama Google ayaa kala qaybsanaya adiga Google wuxuu ku soo dirayaa 50% yani 50% 55 ay dhan meelahaas ay dhan ayuu ku soo diraya inta kalena isaga ayaa qaadanaya waa shirkadda lacagta ay bixisay la kala qaybsanaya dabcan waxa rajeenaya inaa fahantay xagga lacagta ay ka timaado Google AdSense yani xagga lacagta kaaga imaanayso Google AdSense haddaba waxaanu baran doonaa qaabab kala duwan marka yani Google AdSense oo qofka ku soo aqbali doono shuruudaha ee mataqaanaa nidaamyada ayanu baran doonaa soo kale waxaanu isla eegi doonaa يعني ويب سايت كسر لو سميستو كورس كاس هلك أتكيري دونت طبعا أوكي هذا هذين سلا أرجنو شروطها جوجل أرسنس وكوسو أقبل كرو يدو أدي أدفول طبعا وكوسو أقبل كرو أين سليجنا طبعا شروطها صاحب يالو حكم إذا هذا كور نوان شيء يعني وبوسينيا هذا أنا وبوسينيا ويب سايت كاجا وحوارس إنه هو بوقش ليه في ستوريس إنه بوقش ليه أنا أسمي about page يعني page أنا أسمي أصحابتي أنت بدنا ويا قناة كورس كقاتي طبعا إن هدي أذكر سبتانا يعني قيبتن هذا متقنا يوم كحجنيا أوكي أبوتنا وسميسو بريفيس بوليسي نا وسميسو كونتاكت بيج نا وسميسو إن هذا متقنا at least 20 بوست إنا صورته أما 10 بوستي سيدي يتمنشر إنا تا أما كوين تا طبعا سيدي يتمنشر إنا كوين تا أما كير تا طبعا أوبشن أيال الصحة وحيرو على الصحة سمر والبمتقنا يعني أما كيرو أما كوينو وحرسنا سا وإيزي website-kaaga design qurux badan ama diin qurux badan asaaratay oo kale website-kaaga aadan mataqaana postiyada aadan qofka soo koobi garayn oo sawirada iyo postiyada aadan qofka soo koobin inaad adigu qorato dabcan soo kale waxa mataqaana inuu website-kaaga qaybta ugu muhiimsan waa qaybtan inta badan dhalinyartu mataqaana yani website-kaaga inuu leeyahay domain level tusaalahan .com oo kale inuu leeyahay website-kaaga waa inuu domain.com oo leeyahay website-ka hadda inuu xarayn doono waxa uu leeyahay .com ayuu leeyahay mataqaana AdSense-ga inuu xarayn doono soo kale markuu una soo aqbalana video ayaan sidan oo kale mataqaana uga soo duubi doono xayeysiinta ka soo muuqato okay soo kale website-kaaga waa inuu san ku xirnayn kambaniyo kale waxa jira xayeysiinta la saarta sida Google AdSense laakiin waa midka ugu caansan dabcan okay soo kale website-kaaga waa inay ka imaadaan traffic source search engine waa in la soo raadiyo Google ka imaadaan ku soo booqanaya waxa rajaynaa fahantii okay soo kale saaxiibayaal waxaan soo leeyahay doonaa course-ka website-ka halka aad ka heli karto si website aad u samaysan dhalinyarta inta badan mataqaana channel-keena ku xiran way garanayaan qaabka marka yani halka mataqaana aynu ku soo gudbinay waxa dhici karta inaad mataqaana video aan adiga kugu horeyso balse waxaan soo eegi doonaa hadda halkan yani halka aad marka sida course-ka u kala horeeyo maadaama course-ka uu totally free yahay si marka course-ka u kala horeeyo soo eegi doonaa website-kaaga website qurux badan u samaysan lahayd okay saaxiibayaal sa arkayso course-ka hadii aad rabto aad video-gan kugu horeeyo waxaad ku dhufanaysaa ama website aad rabto inaad samaysato haddana in xayeysiinta u fureen yani muuqaalkan oo muuqaalkii u dambeeyay oo ah xayeysiinta website-ka loogu furto ama lacag looga sameeyo okay waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay playlist aad ku dhufanaysaa playlist waa qaybtan aad ku dhufanaysaa oo marka course-ka ku kitisan yahay si iskugu xigaan mataqaana ugu jiro kadibna waxaad ka dooranaysaa qaybtan kale sida website loo sameeyo ayaad ku dhufanaysaa option-kan aad ka dooranaysaa website loo sameeyo qaybtan aad ku dhufanaysaa okay saaxiib yaal qaybtan marka ku dhufato course waa kana qaybtan waa qaybtii koobaad weeye yani video koobaad website-ka ku samaysanayso videogan waa videogii labaad weeye videogan waa videoga mataqaana yani website-kaaga inaad domain ku xirato oo ah qaybta marka ugu muhiimsan website-kaaga inaad domain ku xirato okay soo kale saaxiibayaal haddii aad wax fahmi wada insha Allah waa ku caawinayna haddii walaadno nala soo xiriir soo kale saaxiibayaal waxaanu leenahay telegram-keena waxa weeyaan qaybta description-ka ama qaybta comment-ga okay halka ayaa linkiga yaal ku dhufanaysaa dabcan soo kale qaybtana waa qaybta mataqaana yani domain-kii aad samaysatay ugu xiran lahayd qaybahan kalena way ku anfacayaan oo aad iyo aad ay muhiim u yihiin balse waxa ugu muhiimsan qaybta ugu horeysa yani qaybtan kale iyo qaybtan waa mataqaana qaybaha ugu muhiimsan iyo qaybtan hadda aynu duubayno dabcan waa inta uu kaliya website-ka ku samaysanaysaa kaliya waxa samaynaysaa muuqaalka waa daawanaysaa marka daawato kadibna waa la samaynaysaa dabcan aad iyo aad easy u tahay adigana waxay ku tahay practical inaad barato sida website loo sameeyo iyo sida website lacag loo sameeyo dabcan okay saaxiibayaal sida arkaysaan website-kan waa website marka ay lacagtu u furan tahay ama Google AdSense waxa loo yaqaan innagana isla muuqaalkan dhexdiisa aynu website kale u furi doonaa soo kale markana la soo aqbalana aynu markaa yani soo bandhigi doonaa dabcan okay
saa arkaysaan website-kan waxaa booqday dad gaaraya 3,018 qof. yacni page views-kiisa waxaa soo yiri 3,018 qof. sidoo kale markay booqdeen 3,018 qof, xayeysiinta website-ka ka soo muuqanaysa inuu soo arkaynay waxaa kala gareeyay ama ku dhuftay dad gaaraya 112 qof. waxaa ku dhuftay dad gaaraya 112 qof dabcan. okay, sidoo kale saaxiibayaal, halkii xayeysiin oo la kala gareeyay qiimo ahaan inaga waxay noo ahayd 0.09. dabcan qiimahan waa meesha ugu hooseysa oo markaa yacni wadamada dhaqaalahoodu aadka u hooseeyo ama dadkoodu sabool ahaan ay dhaqaalahoodu aad u hooseeyaan dabcan. okay, sidoo kale saaxiibayaal, haddii aynu tagno calculatorka oo aynu ku dhufanno yacni xayeysiinta mataqaanaa lacagta inaga soo gasha annaga la kala gareeyay dabcan, waxaynu samayn doonaa 112 qof waxaanu ku dhufan doonaa 0.09. waxay noo soo bixi doonana maanta lacagta website-ka laga sameeyey waynu soo arki doonaa dabcan. sida arkaysaan waxa aynu joognaa calculatorka 112 qof saa arkaysaan lagu dhuftay 0.09 waa lacag gaaraysa dabcan $10. waa lacag gaaraysa $10. sidoo kale waxaynu soo eegi doonaa yesterday ama shalay lacagta laga sameeyey website-kan. okay saaxiibayaal, sida arkaysaan lacagta website-kan shalay laga sameeyey waxa weeyaan dabcan sida arkaysaan waxaa booqday 4,800 halka 3,018 ay ahayd mataqaanaa yacni maanta. okay, sida arkaysaan waxaa kala gareeyay 480 qof ayaa waxay ku dhufteen xayeysiinta. sidoo kale 0.08 ayaana loo xisaabiyey CPC ama cost per click waxa loo yaqaan, oo dadka xayeysiinta farto iga dhacday ama ku dhuftay dabcan ama soo eegay. okay, sidaan hore u sheegnay yacni mataqaanaa qiimahan waa qiimaha mataqaanaa ugu liita. sidoo kale wadamada haddii laga soo boqdo Mareykanka kale mataqaanaa wadamada Yurub, wadamada mataqaanaa dhaqaalahoodu sareeyo, yacni CPC-gan halkii qof waxa uu kugu noqonayaa $1 ama 50 senti wax ka sareeya, taas oo aad dareemayso website-ka lacagta ku jirta inay tahay lacag aan sayareen, oo taasoo ah yacni kan ugu saxsan oo maanta dhalinyartu ay ka faa'iidi karaan lacag dabcan. okay, haddaynu soo qiimeyno 480 lagu dhuftay 0.08 waxaa la rabaa inuu noo soo baxdo resultigan $38.9. okay, aynu soo eegno. okay saaxiibayaal, sida arkaysaan markaynu ku dhufanay 480 qof marka ay mataqaanaa yacni 480 qof yacni 0.08 beer keliga xayeysiintii markaynu ku dhufanay waxaa noo soo baxday $38, taasoo ah yacni halkii maal inaad samayso lacag $38 ama lacag $10 u dhaxaysa in aysan ahayn lacag yar oo ah bishiina gaaraysa $300. soo kale saaxiib haddana waxaynu u xareysan doonaa website-kii aynu u xareysan doonaa Google AdSense insha Allah muuqaalkana dhamayso hadduu alla adna sidan oo kale u xareyso shuruudahana saas oo kale u waafaq. soo kale saaxiib haddii aadan muuqaalka like saaran fadlan muuqaalka like saar. okay saaxiibayaal, sida arkaysaan website-kan aynu waxaynu furi doonaa Google AdSense ama xayeysiinta aynu furi doonaa dabcan. saarkaysa website-ka magaciisa waxa loo yaqaanaa xukmaalposti.com. okay, xukmaalposti.com. okay, website-kan aynu waxaynu furi doonaa xayeysiin. haddaba markaa website-kaaga rabto inaad xayeysiin u furto dabcan waxaa samaynaysaa marka koowaad waxaa soo eegaysaa statiska ay soo eegaysaa. statiska markaa ku dhufato dabcan hadda website-kan waxaa soo eegay 4,730 qof ayaa soo eegtay dabcan. shalay oo kaliya waxaa soo eegtay 154 qof. yacni website-kan waa website cusub oo markaa yacni muddo dhow la sameeyay dabcan saa arkayso. okay, soo kale website-kan waxaa la soo dhigay 30 posti. okay, soo kale website-kan waa website domain leh oo ah xukmaalposti.com. yacni shuruudaha oo dhan waa u dhameeyey. soo kale website-kan haddaad soo eegto oo hadda saddexda ku dhufato kadibna aan dhaho view blog saa arkayso aan hoos u baxo dabcan waxa uu leeyahay loo yaqaano mataqaanaa home ayuu leeyahay about disclaimer privacy policy, home about disclaimer privacy policy ayuu leeyahay dabcan. okay, sharciyadanna waa inuu waafaqnaa sida mataqaanaa sharciyadan loo waafaqsayna waxay ku jirtaa koroskii aynu tusiyey oo marka aynu kaga hadlaynay si website loo sameeyo dabcan saa arkayso waxaan oo dhan ayuu leeyahay. okay, haddaba hadda waxaynu u furi doonaa waxa loo yaqaano Google AdSense. Google AdSense markaad inaad u furto waxaad tegaysaa option-kan halkan ay ku qoran tahay earning, halkan ayaad tegaysaa oo dollarku ku soo wareegaya dabcan. halkan markaad tagto aad saa u dhufato kadibna waxaad kasii dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay create AdSense account ayaad ku dhufanaysaa. option-kan ayaad dooranaysaa dabcan. okay, option-kan markaad saa ugu dhufato dabcan wuxuu ku geyn doonaa website-ka Google AdSense ayuu geyn doonaa dabcan waynu soo arki doonaa. okay saaxiibayaal, sida arkayso waa kan dabcan. yacni waxaad samaynaysaa
يعني إن متقنا أحد كل فنيسة هل كان يقولون انتهى yes يعني I don't have set دي ميسد واحد ليس yes أي ليس هل كان option كان أحد كل فنيسة أوكي option كان مركب كل فتو هل كان واحد كدور نيسا وضنك سو كلا وحير هدا إن صوت سو يعني وحير إن سوف فانسيو سو كلا صاحب الوحيابها لقارة وحير هدا إن سوف فانسيو وحلقارة با جوجل أرسل مركارت إن حريصته مجا يعني متقنا مجا يا لقارة سو كلا وحلقارة با address ayaa laga rabaa soo kale wax loo yaqaano postal code ayaa laga rabaa iyo phone number waa iska optional mataqaana yani inta badan waa la iska daayaa dabcan lama qaato iyo country iyo wadanka mataqaana wadanka aad joogto magaciisa iyo magaalada aad joogto magaceeda soo kale Google AdSense Soomaaliya ma aqbalo Google AdSense Soomaaliya ma aqbalo balse qof walaalka ama familkaaga oo joogo dibadda ayaad waxa leedahay waxaad ii soo dirtaa yani waxaad ii soo dirtaa ayaa leedahay magacaaga ii soo dir soo kale addresska aad degan tahay xaafadda aad degan tahay ii soo dir soo kale postal code waa boosto warqadaha la isku diro wax lagu soo diri doono wax loo yaqaan pin code-ka aad lacagta kula bixi doonto dabcan phone number waa iska optional iska daa iyo wadanka uu joogo magaciisa iyo magaalada uu joogo magaceeda intaas oo kaliya ayaa laga rabaa dabcan okay hadaynu ku laabano website-kii halkan waxaanu gelin doonaa country wadanka ayaynu gelin doonaa dabcan wadanka qofkaas yani noo soo diray mataqaana yani information-ka aanu ku xareysanayno ayaynu gelin doonaa dabcan okay wax saameyn ahna kugu yeelan mayso ama website-ka ku yeelan mayso soo kale xogta lacagtaada iyo waxaaga ee website-kaagana qofkaas waxba kama oga dabcan waxaan rajeynayaa inaad fahanteen halkaas okay option-ka halkan waxa dooranaysaa wadanka aad dooranaysaa qof wadanka uu joogo hadda waxaanu dooraynaa qofkan waxa uu joogaa United States okay saaxiibayaal sida arkaysaan waxa inu dooranay wadanka Mareykanka sida arkaysaan yani waa qofka website-ka noo xariirinayo address-ka uma taqaana la soo siiyay way dabcan ma aha inaad ku xariisato adigana address qof walaalka family dibadda jooga yani la hadal waxa tiraa intaas kaga baana ii soo dir saad ugu xariisato ma aha wax la iska gelgelinaya halkan okay inta kadib waxa sameeynaa yani sida arkayso website-kiisa automatic ay u qaatay dabcan okay sida arkayso halkan waxa dhahaysaa yes ayaa dhahaysaa okay wadanka mataqaana qofka address-ka uu joogo lagu soo sheegay ama hadaad joogto adiga ahaan ayaad gashanaysaa halkan okay option-kan waa saxaysaa click ayaa siinaysaa dabcan option-kan waa saxaysaa okay inta kadib waxa dhahaysaa start using AdSense ayaa dhahaysaa kan ayaa saxaysaa kadib waxa dhahaysaa start using AdSense ayaa dhahaysaa saaxiibayaal waa wareeganaya dabcan okay sa arkaysaan Google AdSense ayuu si toos ah inoo geliyaa dabcan kadib waxa sameeyaysaa wuxuu ku soo saarayaa saddexdan option ay ku saaraya balse option-ka aad ku dhufanayso waa option-kan enter information option-kan aad ku dhufanaysaa dabcan okay saaxiibayaal sida arkaysaan option-kan yani waa option-ka markuu qofku xareysanayo mataqaana yani Google AdSense laga rabo soo kale saa arkaysaan yani customer information halka ku qoran okay soo kale account type halkan account type ayaa ku qoran dabcan account type-ka hadaynu furno laba ay u kala baxaa dabcan waxay kala yihiin individual iyo business balse mar walba inaad doorato wax loo yaqaano yani individual okay saaxiib balse arkaysa inagu waxaanu dooranay individual aynu dooran okay halkan waxa gelinaysaa yani halkan waxa gelinaysaa qofka magaciisa ay gelinaysaa okay halkan waxa gelinaysaa qofka address-kiisa ayaad gelinaysaa address-ka koobaad aad iyo aad ayaa lagu baahan yahay address-ka waxa qofka magaalada ama degmada uu joogo address-ka xaafadiisa weeyaan okay address-ka labaad waa iska optional waa qaadan kartaa waa iska deyn kartaa okay soo kale waxyaabaha mataqaana aad laga rabo waxa kamid ah yani qofka magaalada uu joogo iyo magaalada qofka gobolka ay ka tirsan tahay uu joogo dabcan iyadana aad ayaa loo rabaa iyo marka postal code-ka oo ah tan marka aan isdhigi karo waa ugu muhiimsan tahay oo ah postal code-ka aad iyo aad ayaa loo baahan yahay ama zip code waxa loo yaqaan phone number-kuna waa iska optional oo waa qaadan kartaa waa iska din kartaa waxa rajaynaynaa inaad fahanteen intaas ayaad gelinaysaa kadibna marka intaa gelayso waxa dhahaysaa wax loo yaqaano submit ayaa dhahaysaa okay saaxiibayaal sida arkaysaan options-kii oo dhan waynu buuxinay kadibna waxaanu dhihi doonaa halkan ay ku qoran tahay submit ayaynu dhahaynaa dabcan waxaanu dhahaynaa submit ayaynu dhahaynaa okay haddaynu submit ku dhufano dabcan waa iska soo hubinaysaa waa iska soo checking garaynaysaa inay wax ku saxayeen kale okay kadibna waxaanu dhahaynaa submit ayaynu dhahaynaa kadibna marka waxa dhahaysaa yani address-kan isticmaal baa dhahaysaa use address kadibna saas ayuu markaa ku tagayaa okay kadibna waxa dhahaysaa mar kale submit ayaa dhahaysaa
okay saaxiibayaal sidaas ayaa markaa ku xariisatay waxa loo yaqaano Google AdSense oo markaa waxa weeyaan mataqaanaa yacni Gmail ayaa ku soo dhacaya Google AdSense waa xariisatay waxaan sugaysaa 2 week ama after 2 week mataqaanaa waa lagu soo aqbali doonaa ama waa lagu soo diidi doonaa balse hadda sidoo kale aad noqotay qof shuruudaha dhameeyay oo shuruudaha aan maanta dhan videoga aan ku dhex yacni aan sheegay aad mataqaanaa aad samaysay insha Allah boqolkiiba boqol rajadaada mataqaanaa waa lagu soo aqbalayaa dabcan soo kala saaxiibayaal haddii aad muuqaal ka heshay fadlan muuqaalka like saar haddii aad nagu cusub tahayna channelka subscribe saar oo inagu soo biir